كموت تسوقتي ذا يبكي أجار تبقى كيف يوم نكوك في ما قولي سهاي قولي سهاي كيف يوم نكوك في ما قولي سهاي قولي سهاي قوي قوحان بحايا يقرباتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي السلام أصحابتي دمانتين سوودة دنتهين وولالكينا أسد حاجيو. Yeah man, what's up man? How are you doing man? Are you happy? Yes, I'm happy. Alhamdulillah. كسر دوان مقال عصب. أنت هذا مقال كان كسر دوان بليز هذا channel عصب تاعي. سبسكرايب مصار. واحد صار النهاية ودي يوم كتجلهن. 500,000 subscribers ادي ادو ما سنتاي مقال كان ما تروح حسابسن yahay waxaad igu sugeyseen in aan idin soo gudbiyo yaa loo codeeyay best tiktoker of the year yaa loo codeeyay xidiga tiktok insha Allah waxaad ku ogaan doontaa muuqaalkan intaan muuqaal guud galin waxaan halkan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa dhammaan asxaabteeda team 27 kuwa hadda igu cusub iyo kuwa ila joogaba dhamaantiina waa maasantiin maanta waa maalinta ugu dambayso ee codeynta haddaan dib isku xasuusino waxaan soo dooranay best couple waxaan soo dooranay fanaanka sanadka waxaan soo dooranay fanaanada sanadka waxaan soo dooranay youtube-ka sanadka waxaan soo dooranay youtuberada sanadka maantana waxaan dooran doonaa insha Allah best tiktoker of the year codkiina waan soo tiriyay waana ogahay cidii ku guuleysatay insha Allah waxa ku ogaan doontaan muuqaalkan hadduu ilaahay yiraahdo sideen caadiga ahaydba waxaan dul marnaa codeynta aad soo codeyseen in aan wax yar iyo hal iyo labo aan ka akhrino qofka ugu horeeyo oo halkan u jeedo waxa waaye Nasra Khali oo 14 hours ago ay u soo codeysay Moha Amuna sidoo kale Nasra Abtidonna waxay u soo codeysay Natasha sidoo kale waxaa comment soo bixiyay gabadhan loo magacaabo Sundus Maxamed oo 14 hours ago ay u soo codeysay Moha Amuna insha Allah waan dul mareynaa sidoo kale wiilkan SSTV uu qorantahay wuxuu kamid yahay dadka si qurux badan ila joogay sida qurux badan u soo codeynay macnaha sanadkana macnaha intii codeynta socotay dhan qof kala duwan ay u soo codeynayay uuna mahadsan yahay ma sha Allah way jiraan dad badan oo aan ka dhax bartay dadka codeynta soo qoray dhamaantiina waa maasantiin Aliza Ali waxay u soo codeysay Muna Imoha sidoo kale Saeed Ahmed wuxuu u soo codeeyay 2 hours ago the best guuxay okay waa ku soconaynaa waan dul mareynaa Muna Amoha Natasha intii hore ma codeynin laakiin caawa team guuxay okay guuxay ay loo codeeyay Natasha Muna Imoha Muna iyo Moha مودو إن شاء الله لكن 7 minute محاواي 535 comment هدات إيه ده حركته لايك إيسار أوكي قوي حاي منا إيموها موديريسي متانها منا إيموها تدي رأسن فرتتك قوي حاي one love منا إيموها the best tiktoker is موديريسي Muna Imoha yaan la xaqirin walaalayaal asid xaajo adiga salaan ayaan hawada ku soo marin iga gudoon thank you so much waan ka qaaday anigana waad salaaman tahay wiilkaas Moha Kante wuxuu u codeeyay Muna Imoha mudirise muwado Muna and Moha Natasha guuxay the one and only guuxay سميحة مليون لك جوحي موها أمونا جوحي سوري سميحة قليل منا أموها سميحة قليل منا أموها مدرسي منا أموها مدرسي منا أموها مدرسي متانها منا أموها مدرسي جوحي منا أموها متانها منا أموها جوحي مدرسي جوحي مدرسي جوحي مدرسي منا أموها جوحي مدرسي منا أموها جوحي
mudirise Muna Amoha guuxay mudirise Muna Amoha waxa best TikToker of the year 2021 waxa ku guuleysteen mataanaha Muna Amoha hambalyo Moha Muna waxay team 27 ay idin doorteen in aad tihiin best TikToker of the year hambalyo masha Allah biladaas qurux badan ayaad ku guuleysateen mataanaha Muna Amoha oo idin codeeyeen team 27 hambalyo waad u qalantaan waan arkay waxa aad dadka la imaadeen waan aragnay talentiga aad la soo baxdeen waan aragnay muuqaaladiina mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay hambalyo waxaa tihiin xidiga TikTok waxaa tihiin dadka TikTok ay u xureysan tahay insha Allah waxaan idin rajeynaa in aad meeshiina aad ka socotaan sanado soo socdan insha Allah oo aad wiligiin ahaataan best TikToker abti hadda muuqaalkan daawanaysiin waxaan idin leeyahay hambalyo okay ugu dambeyntii waxaa kala ogaanay xidiga TikTok in ay yihiin mataanaha Moha Muna waxa kale halkaan aan ugu hambalyeena dadkii u soo codeeyay Muna Moha sidoo kale idinkan hambalyo insha Allah dhamaantiina waxa rajeynaa inaad dhanka commentiga aad ku taageertaan mataanaha Muna Amoha hambalyo farxada waan il qayb qaadanaynaa insha Allah waana u qalantiina intaan in ka badan nil guddoonsiyo waana mudantihiin waxaan il dardaami doonaa in aad halkiina aad ka sii wadaan okay ugu dambeyntii waa ka asxaabta waxa inoo soo dhamaaday programkii codeynta maybe wuxuu socday 2 weeks oo maleenayo muhubo laakiin waxa ku maasantihiin sida qurux badan aad ila joogteen dhamaantiin waxaan idinku mahad celiyo ma aqaan madax kurkiisa ayaad i saarantiin waad i sharafteen si qurux badan ayaad codkiina u soo dhiibanaysiin dhamaantiin waxa idin leeyahay waa maasantiin kun iyo kow jeer insha Allah dadka cusubna waxaan rajeynaa in ay soo dhawaadaan insha Allah taala intaasan jeclaystay asxaabta inaan nil wadaago intaasan jeclaysanay inaan nigu soo gudbino waxa ku maasantiin taawsha muuqaalkan insha Allah waxa inoo balanaa muuqaalka xiga insha Allah sidaas iyo nabadgelyo bye bye naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo